nin gabadha dabadda ka eriyay daaqa ka eriyay nin hadduu doono si kale wuxuu farsamo xumeeyay dhammaan markay arrintu isku soo ururto waxaaskii hebel kuraasiimkeedan ku fadhiya waa kuraasidiinii dariiqaa doontaa ku timaadaan waxba taasi daruuri maaha raad arooriyo dib looma raaco idinkaa waddanka ka baarlamana idinkaa kuraastii ku fadhiya ilaahay baa idinku guuleeyey subxaana wa tacaala waxaynu u baahan nahay un horu socod iyo inaynu dareenno xaaladdu halka ay marayso farxadda wejiyadiina ka muuqata iyo raynraynta iyo dadka maanta laydinku faraxsan yahay yaani arrintaasi hoos u soo dhicin oo nin Soomaaliya la yidhaahdo xoogaa mala doqonnimo lagu tuhmayey ayaa intuu malaha lumay gurigii ka lumay la soo helay ayaa dadkii soo weego wuxuu yidhi maxaa ku faraxsantihiin oo ku qoslaysaa waxaanu ku faraxsanahay in lagu soo helay bay yidhaahdeen dee soo berriba lumi maayo buuri soo berriba haddana lumi maayo marka taasi ay nagu dhicin farxaddeenna ilaahay inoo taam yeelo halkii in badan dee baarlamaanka u aragtay markaad dabadda ka joogteen maalinu faraxsan yahay sidan oo kale maalinu mooshin diyaarinayo maalinu iska laalaado qarshajacdu dee ma yaro waa dushaa kala socoteen iminkana gudihii baa fadhidaan inaa wixii halkaa ka socday ee hadda ka hor la socoteen ee qalad u arkayseen aa ka baydhaan ayuunbaa laydinka doonayaa aydan waddadii hore uun aydan ku sii socon hadal badan layma siinin laakiin ilaahay subxaanahu jalla wacalaa mas-uuliyaddu ina saaray ayaa ina tusaysa aayadaha qur-aankaynu akhrinay ee wada fahmaysaan ayaa ilaahay nagu tusaaleenaya ammaanaddu sida ay tahay cirkiga dhulkaa diiday inay ammaanada qaadaan insaankaa qaadee baa layidhi aqoon darro darteed ayuu arrintaa u qaaday insaankii baynu ka mid nahay innaguna mas-uuliyaddaa qaaday ina alinsaana la daluumun kafaar baa ilaahay yidhi insaanku waa mid maxaan ku dhahdaye gaalnimo badan oo macnaheedu yahay waa mid nimcada ilaahay qarinaya nicamka ilaahay u galay insaanka kama shukriyaan oo kama jawaabaan arrintan oo kale mahadnaq bay nooga baahan tahay alxamdulilah bay nooga baahan tahay mahadda iyo nimcadana waxa lagu dabraabaa la yidhi waa mahadnaqa nimcada dabarkeedu waa mahadnaqa ilaahay nimco uu ku siiye kaa qaadi maayo haddaynu ilaahay mahadinno saasaa ilaahay naska qur-aanka lain shakartum laaziidannakum baa ilaahay yidhi haddaynu shukrino ilahay nimcada waa inoo taam yeelaya waddanka roobla'aan baa ka jirta abaaraha ka jira duruufo adag baa ka jira in badan buu waddanku jiijiid siyaasadeed ku soo jiray dhammaan waa laydin soo eegayaa bal dhinaca waxu dhaqaajisaan taladii tawfiiqda allah ina waafajiyo kuwii lagu nasto allah inaga yeelo aamiin dhaha kuwii lagu nasto ee qorshihii hore wax ka beddelay allah inaga yeelo asalaamu calaykum waraxmatullah xildhibaan jacfar mar noo imow adigoo ku mahadsan mudane guddoomiye waxaan u yeerayaa 4 xildhibaan oo la dhaarinayo waxaan ugu horeeyo xildhibaan Faaduma Xasan xildhibaan Sahra Qorsheel xildhibaan Maxamed Maxamuud Jimcaale Seyse xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan xildhibaanadaas waxaan ka codsanaynaa inay soo istaagaan miiskan yar iyo 4 kutub ay u yimaadaan waxaana dhaarinayo yaa dhaarinaya
xildhibaan faadumo waa loo geeyey kitaabka meesheeda ha iska fadhiso maadaama ay saas la yidhi waxaa dhaarinayo xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux. dadka dhaarta sugayoo dhan hore ha yimaadaan. xildhibaankii shahaado haysta halow xildhibaankii shahaado haysta oo aan la dhaarin fadlan ah ku soo biiro dhaarta hadda dhacaysa. xildhibaankii shahaado haysta ama xildhibaanadii haysata ha ku soo biiraan. waayo yaa hadhay bas miya waa shantaa xildhibaan miya maad ku jirta ID card bas ID card ya bas magaceedu waa shamsaya shamsa xasan shamsa xasan cilmi haa shamsa xasan aadan miya aadan baa laga wadaa shamsa xasan ku dar shamsa ku dar ها بسم الله الرحمن الرحيم. gacanta saara waxaan islaahay intii aan dhahaa un baad iga daba dhahaysaan. waxaan ku dhaaranhayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka iyo shuruucda kale dalka u yaala. wabilaahi towfiiq. waxaan ku daraynaa xildhibaan saysay.
bismillahi raxmaan raxiim waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taal wabillahi tawfiiq mudane guddoomiye ku soo dhowow marka wixii ajandaa xildhibaanada sharafta leh waad ku mahadsantihiin sidaad u soo xaadirteen iyadoo maalintii koowaad aan joogno kalfadhigii koowaad dhaartii khamiistii ka bacdi waxaan horta idinkugu hambalyaynahayaa xildhibaananimadayada xildhibaanada kow iyo tobnaad oo saaka badidooda halkan joogto waxaan si gaara ugu hambalyaynahayaa xildhibaanada maantay dhaartay 6 xildhibaan oo maanta la dhaariyey oo awal ka maqnaa dhaartii khamiista sababo kala duwan waa u hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa waxaad wada og tihiin saaxiibayaal xaaladda dalkeennu ku sugan yahay maanta iyo cadaadiska adduunku nagu hayo dhibaatada iyadoo abaari jiraan oo midaan la aragoo la maqale ay jirto haddana nala leeyahay haddaadnan wakhtigaa wax lagu dhammayn wax walba waa xirmahayaan cafiskii dayntu ayana waa laga noqonahayaa marka dalkii waxa u maqan oo hadda u istaagay bilowgii dawladda waa xildhibaanada halkan fadhiya waxaa istaagay tiirkii dawladnimada laga bilaabayey waxa dhimanna waxaan ku kalsoonahay inaad dhammaystiri doontaan maxay xoogaal baa wada tihiin meesha xaaladda dalkeennu maraya maanta waxaa haddana hor yaal oo la rabo nala ka filahayo maanta inaan dedejinno waxaa weeye guddoonkii rasmiga ahaa ee golaha shacabka iyo ku-xigeennadiisii iyadoo aan annagu isku sheegayno qof waliba og yahay sida xaaladdeennu tahay inaan dedejinno oo aan muddo kooban ku soo afjarno ayaa nala ka filahayaa annaguna aan isfaraynaa marka waxaan soo dooranaynaa
toban xildhibaan oo ah kuwii soo ururinahaya oo soo qaabaynahayey guddoomiyaha cusub iyo ku-xigeennadiisa. anugu weligay baarlamaan ma gelin, mana fadhiisan jirin oo ma haleelin inaan fadhiistoon dhegaysto. waxaan ahay badow aan waxba ka aqoon waxa halkan ka socda, laakiin waxaan na hagahayo aniga i hagahayo kolleyba macallimiinta meesha ku ilbaxday oo joogta oo kuwii horena fulin jiray haddana aan magan u nahay, marti u nahay. marka maadaama aan odagaas ahay aan la socon waxa dhacaya, aanaba hadda malaynayn inuu baarlamaan yimaadee hadda aan imid, haddii laygu xurmeeyey inaan odagii ahay baarlamaankan sharafta badan, waxaan rabaa inaan anigu isgeeyo jagadii waalidnimada. idinkuna waxaan rajaynaya inaad noqotaan carruur baariyaal ah. waxaan marka soo jeedinayo idinka codsanahayaa 10kaa xibnood intay wakhti badan naga qaadi lahaayeen inaad igu xushmaysaan inaan anugu 10 awlaaddayda ka mida aan soo qabto. waxba looma baahno buuq laysku sameeyee intii ogole gacanta ha taagto. waayahay inta odagii waalidnimada isku sheegay inta diidan soo jeedintiisa gacanta ha taagto. okay, dhegaysa waayahay. waxaan arkay haddii gacanta la taagay inta diidan waxaan soo jeedintii iga aqbali weyday baa badan. marka waxaan rabaa idinkaa iskala yaqaan inaad beel ahaan laba qof ii keentaan intaan maanta halka fadhiyo, laba ii keentaan oo idinku marka dhexdiinna ka soo qabataan. xildhibaano haddaa la rabaa howlgala beelbeel ha loo galo. waxaan idinkala soo hadlayaa xarunta golaha shacabka. halkan waxaa durba ka bilowday xuraansiga ku aadan xubnaha 10 xubnood ee golaha shacabka, kuwaas oo ka shaqayn doona
doorashada guddoonka golaha shacabka ilaa 10 xubnood ayuu guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka xildhibaan Dhaban Cad uu soo jeediyey balse xubno badan ayaa ka diiday sida codadka golaha shacabka loo tiriyana dhanka loo bata ayaa la aadaa taas oo soo jeedinta guddoomiyihii ka hortimid waxaana hadda xildhibaanada loo diray in beel walba ay soo magacaawdo 2 xubnood labadaas xubnood ayaa ka dhigay in beelaha waaweyn min laba ay soo magacaabayaan beel walba oo 4.5 ka golaha shacabka ku dhisan yahayna loo mari doono nidaamkan arrintan ayaa hadda bilaabatay daqiiqada ayaana la sugi doonaa xildhibaanada ayaa hadda si toos ah waxay u wadaan inay isku aadaan qof walba iyo beeshiisa xildhibaanadii ugu badnaa ee golaha shacabka ayaa maanta kulankii koowaad ee golaha shacabka soo xaadiray waxaana xildhibaanada hadda ay u baxayaan bannaanka iyadoo guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka xildhibaan Dhaban Cad uu soo jeedinayo xildhibaan Mahad Cabdulla Cabad oo golaha shacabka hore ugu ahaa guddoomiye ku-xigeenkii labaad ayaa soo jeedin u jeediyey guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka xildhibaan Dhaban Cad taas oo ah in saacad kadib uu warbixin ka dhagaysto xubnaha golaha shacabka xildhibaanada golaha shacabka ee maanta soo xaadiray oo aad u tiro badan marka laga reebo xubnaha aan weli la dooran oo maqan iyo kuwo kale oo maanta halkan lagu dhaariyeyba waxa ay dooranayaan ama iska soo dhex saarayaan min 2 xubnood kuwaas oo matalaya xubnaha golaha shacabka ee ka shaqaynaya guddoonka baarlamaanka golaha shacabka xildhibaan Dhaban Cad guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka ayaa waxa uu soo jeediyey in isaga uu magacaabo xubnaha cusub balse waa ay ka diideen gebi ahaanba xubnihii golaha shacabka tirada ugu badnaa oo halleerida ee golaha shacabka lagu xisaabiya ayaa soo jeediyey in guddoomiyaha aanu magacaabi karin balse ayaga iska soo xulayaan min xubno kuwaas oo beel walba ay soo xuli doonto 2 xubnood beelbeel ayaana xilligan bannaanka loogu baxaya kuwaas oo ka shaqayn doona sidii ay ku soo saari lahaayeen 2 xubnood ee ka shaqaynaysa doorashada guddoonka golaha shacabka ilaa 10 xubnood ayaa loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya daawadayaal sida muuqata halkan waxaa ka socda xuuraansi oo dhinac walba la isugu marayo beelaha awood qaybsiga siyaasadda ayaana la isugu aadayaa oo 4.5 ah beel walbana ama xildhibaan walba waxa uu aadayaa xildhibaanada ku beeshiisa ah ee 4.5 dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ayaa hoolka bannaanka ugu baxay ayagoo habbeeleed isugu fadhiisan doona si ay u soo magacaabaan min 2 xubnood oo beel walba matalaysa taas oo ka dhigan in 10kaas xubnood ay noqon doonaan xildhibaanada ka shaqayn doona doorashada guddoonka golaha shacabka doorashada Soomaaliya ayaa sida hadda muuqata waa la dardargelinayaa maadaama guddoonka isla maanta kulankii koowaad uu sheegay in uu doonayo inuu magacaabo xubnaha 10 ee ka shaqaynaya doorashada guddoonka golaha shacabka ilaa 5 xubnood ayaa maanta lagu dhaariyay xarunta golaha shacabka oo hogaaminayo taliyihii hore ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Maxamed Mahad Cabdiraxmaan Aadan General Mahad ayaa shalay xilkiisa waxa uu ku wareejiyay taliye xigeenka taas oo ka dhigeen in maanta markii la dhaariyay kadib aanu ahayn taliyihii asluubta uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xildhibaanada maqan waa kuwa aan laga dooran gado kuwa kale oo qaarkood wali aan qaadan oo uu ku jiro ama aan la dhaarin oo uu ku jiro kusmaha taliyaha Nisa Yaasiin Cabdulaahi Maxamuud iyo xubno kale oo aan wali la dhaarin oo uu qayb ka yahay Cabdulaahi Aadan kulane xubnahaas wali looma dhaarin golaha shacabka maantana Soomaa aysan xaadirin sidoo kale xubno kale ayaanan maanta xaadirin golaha shacabka balse waa tiradii ugu badneed tirada maanta soo xadirtay
doodan iyo kulankii koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya xildhibaanadii maqaabiirta ee golaha shacabka hore kaga tirsanaa ayaana iyana muuqanaya waxaana maanta kulankan aan sidoo kale ka muuqan gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sida hadda muuqata saacad kadib ayaa dib isugu soo laaban doonaa xarunta golaha shacabka oo gudoomiyuhu soo fadhiisan doonaa iyadoo beel walba laga sugayo min 2 xubnood oo ay iska soo xulayaan dhammaan beelaha awood qaybsiga ah daawadayaal waan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xarunta golaha shacabka oo maanta ay ka bilaabatay howlihii ugu horeeyay ee doorashada aan dib idinku soo laabano nabadgelyo